ومقدس waxaa ka hadlaya qolo la oran jiray USB oo ay ugu horeyso Sool iyo Sanaag iyo Cayn ama Khaatumo Awdal State iyo Maakhir State marka odayadu taariikh iyo aqoon iyo waxay nagu soo kordhinayaan waxaan u yeerayaa marka hore Cabdirasaaq Sanweyne falyatafadal بسم الله الرحمن الرحيم aad baan u salaamayaa dadkiinan sharafta leh ee nagala soo qayb galay bayaanka aanu ku gudbinayno war-saxaafadeedka kaasoo ujeedadiisu ay tahay inaanu u gudbino ummadda Soomaaliyeed wixii ku qodobaysan bayaankan aanu kaga hadlano inaanu dawladda Soomaaliyeed taageeradeeda iyo soo dhaweynteeda aanu ku muujino shucuubtayada inaanu muujino bulshada caalamka isla markaana aanu ka hadalno wixii ujeedooyina ee bayaankan ku cayiman inta markaan ka gudbo bayaankan war-saxaafadeedkaanu ku soo gudbinay ayaan bilaabi doonaa wuxuu soo baxay bayaankani October 22keedii 2012 22keedii 2012 bayaankan oo ay si wada jir ah u soo saareen waxgaradka aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta ka soo kala jeeda deegaanada maamul goboleedka Khaatumo State Awdal State iyo deegaanada Maakhir Coast ujeedadan bayaankan oo ku faahfaahsan qodobadiisa hoos ku cayiman wuxuu si toos ah ugu socdaa lana ogeysiinaya hay'adaha hoos ku cayiman ku madaxweynaha federaalka dawladda Soomaaliyeed ku gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed ku wasiirka koowaad ee dawladda federaalka Soomaaliyeed oo golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed oo maamulka Khaatumo State Awdal State iyo deegaamada Maakhir og xafiiska wakiilka United Nations ee arrimaha Soomaaliya og xafiiska wakiilka African Union ee arrimaha Soomaaliya og wakiilka jaamacadda Carabta ee arrimaha Soomaaliya og dawladda Turkiga og xafiiska wakiilka IGAD ee arrimaha Soomaaliya og United States Department of African Desk Somali Affairs Office og European Union Somali Affairs Office ugu horeyntii waxaanu ummadda Soomaaliyeed ku salaamanaa salaanta islaamka waxaanu u rajaynaynaa nabad iyo midnimo marka xiga waxaanu u hambalyeynaa madaxweynaha Soomaaliyeed gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa guud ahaan golaha wakiilada iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliyeed isla sidoo kale waxaanu uga mahad celinaynaa bulshada caalamka taageeradii iyo dadaalkii ay ugu fududeeyeen ummadda Soomaaliyeed inay gaadho nabad midnimo iyo dawladnimo loo dhan yahay qodobka koowaad waxaanu cadeymo dheeraad ah iyo xog ka bixinaynaa taariikhda deegaamada waqooyiga Soomaaliyeed intii ka dambeysay 1884 Berlin Conference gumaystayaashii reer galbeedku waxay ummadda Soomaaliyeed u qaybsadeen 1884 kii qayba ay iyagu dantooda ugu heshiiyeen
British Somaliland, Italian Somaliland, and French Somaliland iyo Soomaalida Ethiopia oo inta badan Ingiriisku gacanta ku hayay. Ummadda Soomaaliyeed oo ahayd ummad isku mid ah diin ahaan isku mid ah af ahaan diin ahaan iyo sinji ahaanba rabitaankooda kumay iman googoynta iyo qoqobka reer Yurub ku sameeyeen. Sidoo kale marnaba ma suurtagelin in ummadda Soomaaliyeed markooda wada noolaanshahooda iyo wada deganaanshaha dhulka Soomaaliyeed oo idin inuu kala xadeysnaado marka laga reebo xuduudaha ay kala samaysteen isticmaalku waqtigaas. Qodobka labaad, muddadii isticmaalku ku sugnaa dalka Soomaaliyeed guud ahaan waxay ummadda Soomaaliyeed la timi halgan ay ku doonayaan madax bannaanidooda, gobonnimadooda, diintooda, taladooda iyo dhulkoodaba. waxaa hubaal ah in ay qaadatay in la gaaro gobonnimo iyo xorriyad waqti dheer oo aan ka yarayn 70 sanadood. sidoo kale waxaa hubaal ah in badan oo maanta oo ummadda Soomaaliyeed in ay u soo nafwaayeen halganka gobonnimo gaarka Soomaaliyeed. waxaa xusuus mudan inaan la halmaamin dhacdooyinkii kala duwanaa ee ummadda Soomaaliyeed u soo martay xorriyadooda iyo in la waayo xuduudihii isticmaalka danahooda ugu kala xariiqdeen dhulka Soomaaliyeed. qodobka saddexaad, waqtigii la gaaray in la helo xorriyadda sida midka ah loo wada doonayay marka laga reebo Soomaalida isticmaalku ku daray dalka Ethiopia iyo kuwa uu raaciyay Kenya. isticmaalka gumeystihii reer galbeedku way soo kala hormariyeen inta kale. 26 June 1960 waxaa ka xoroobay gacan ku hayntii dowladda Ingiriiska waqooyiga Soomaaliya. waxaa laga saaray guud ahaan waqooyiga Soomaaliya calankii Soomaaliyeed ee buluuga ahaa lahaana xidigta cad ee shanta gees kaasoo lagu hindi